daawadayaal sida aad ku wada maqasheen maalintii shalay koox dabley ah oo iyagu dana gaara watay ayaa weerar ku qaaday dadweynihii la dejiyay xaafadda Siidee Nasiib ee guryaha gargaarka ee xaqa lahaanshaha guri. Haddaba Maxamed Cabdiraxmaan oo studio-ga la jooga ayaa inooga waramaya arintaasi sida ay u dhacday. aad baad u mahadsantahay Faadimo hadii arintaasi aanu wareentaba ka hadalno waxa jirta in xafiiska miirigu uu bilaabay hawlgallo sharci dejin ah hawlgalladaasi oo ah in guryaha sida sharci darada ah looga dhistay goobta iyadu buldhuqo laga raro hawlahaasi haddaba sharci dejinta markii ay ku guda jireen xafiiska miiriga iyo waliba ciidamada booliska ayaa waxa dhacday in gacan ka hadal loola yimaado ciidamada booliska iyo dadkii u xilsaaran hawshaasi sharci dejinta waxaan ognahay in Faadimo xaafadda amba goobta buldhuqo la yiraahdo ay degan yihiin dad intooda badan aan muwaadiniin reer Djibouti ah aan ahayn saas darteed waxa goobahaasi laga dhistay guryo aan sharciga waafaqsanayn amba si sharci ah loo dhisan haddaba sharci dejintaasi ayaa xafiiska miiriga ku dhawaaqay isla mar ahaantaana ay ku gada jireen sharci dejintaasi amba xaafadaasi sida sharciyada loo dejiyay amba loo dhistaba iyadoo hawshaasi lagu jiro ayaa waxa dhacday in ciidamada booliska iyo miirigaba gacan ka hadal arintaasi awgeed loo laga yimid arintaasi kadib waxa dhacday Faadimo in kooxo dabley ah ay weerar ku qaadaan xaafadda Nasiib ee dhawaanta la dejiyay dadkii iyagu ku gurya beelay xaafadii dabkii qabsaday xaafadaha qaar ee degmada Balbala weerarkaasi ayaa isagoo ahaa mid baan runtii waxaana ay waxyeelo baan u geysteen xaafadaasi Nasiib haday noqoto guryaha gaar ahaan waliba dugsiga waxbarasho ee lagu talagalay ubadku in ay waxbarashada ku dhigtaan ama casharada ku dhigtaan oo sanadkan bilowgiisiba wasiirka waxbarashada qaran ee tababarka xirfaduhu uu iridaha u furay dugsigaasi ayaa waxa dhacday Faadimo in ay qolka isagoo maqalkii muuqaalkii buugaagta runtii ay dad qabadsiiyaan oo buugaagtiina ay ka wadgubeen carruurta waxa sidoo kale dhacday in dugsigaasi waxyeelo ba'an ay u geysteen kaasoo ah mid casri ah oo faraha laga qaaday sanadkan looguna talagalay in ubadka xaafadaasi degan ay wax ku dhigtaan waxbarashadoodana ay ku qaataan ciidamada booliska ayaa arintaasi isla markiiba galay hawshaasina arintaasina xaliyay waxa jirta haddaba in saaka koox ka tirsan iltideedu ay gaadhay xaafadda Siidee Nasiib Mustafa Xasan ayaa ka waramay ooyin sharci dejin ah oo ay dawladdu qaaday kuwaasi oo lagu tirtirayo dhismayowga sharci darrada ee sida ballaaran looga dhistay goobta loo yaqaano buldhuqo haddaba dad iyagu aan haba yaraatee wax sharciya haysan ayaa ka hortagay ciidamada qaabilsanaa sharci dejinta ee waday howlgalkaasi iyaka oo weliba dhaawacyo u geystay ciidamada dadkaasi dagaal oogayaashu intaasi uun kuma joogin ee waxa ay si bareedh ah duulimaad ugu qaadeen dadka la dejiyay xaafadda Nasiib kuwaasi oo guryahoogu baabiyay dabku kana faa'iideystay mashruuca Fondation Droit à Logement ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxayna halkaasi gaarsiiyeen khasaaro lixaad leh iyaka oo waliba dab qabadsiiyay dugsiga waxbarasho ee xaafadaasi Nasiib arintii shalay tola dhacday arrin bay ahayd waa ka iskooladii waa naga jajabiyay ciyaalkii waa naga kala halaabeen iminkana waan helay ciyaalkayga alxamdulillah baan leenahay laakiin se waxana soo gaadhay Allah ma hadiya askarteedii baan soo gaadhay dawladeedii baa ciidan noo keentay iminkana alxamdulillah baan leenahay ciidankayagii anagoo iskoolkii joognana la soo galay askartii baa ciyaalkii badbaadisay qola saafaf sita shicibaa soo gashay dhulkii askartii baa la laayay dadkii baa la laayay waxaan nahay dadkii Siiteeda maxay ahayd dawladdu u soo gurmatay ay u gargaartay ay aqalada siisay haddaan nahay dib baa nagu soo gaadhay dadka baa nagu soo qaaday reer Buldhuqo xoog iyo isticmaaleen maxay ahayd saafaf iyo wixii ay hub haysteen haday qortay haday dhagaxtay iyo budad intaba annagu way nagu darsadeen ciidanka way ku darsameen annaga Ilaahay baa na bixiyay ciidankana badbaadshay ma hadda Ilaahay baa iskale Maxamed baa sharafta leh imikana askartii dhaawaceegi halkan barnin iyo shanin baan ku daweynoo dhaawaca gacmooga lagu qaaday waan ka kicinay askartay haayeen oo waan ka kicinay waan dhawaynay waan dhaynay kolka hore waxay yiraahdeen annaga dhukana loo mitiriyay annagu dhukanaan ahayn inigu waa soo hadaad qoladii dabka lagu keenay tihiin oo dabkii ku timaadeen annaga qaleeda xoog bad ku timaadeen bay yiraahdeen kolka xoog baan ku qaadanaynaa dawladdiina kolkay la dagaalameen ay askartii maxay ahayd ka xoog roobay qaladii jajabiyeen inka halkan kolkaad ka wareegtiin qalada sijeedka sidaas sijeedka u sii jeed nabaradii ilbaabada waad arkaysiin dhagaxaysa ugu tumeen
ilbaabadan ka soo xidhan ilbaabadan bana bixiyay anaga bana bixin ragaas ayay way gubeen direyskii way qaateen way bilaqaysteen halkan nasiib shalay dagaal xoogaa ka dhacay dadkaasna dadka waxay ahayn baldoqo ka yimiday inkastoo dadkii in yar olowliya si fiican baa loola hadlay oo nacam dadkii qiyaas labaal nimi tirin baa la si fiican wanaagsan baa loola hadlay wuli ciidanka u raraya alaabta oo u dejinay meesha oo waxa u joojinay dibadeed waxaan ba marka daan bilaabay qasbay bilaabeen dibada askari dhaawacaan iyo dadii laayaan bay bilaabeen ilaa iskooladii gubeen xoolihii dawladda taanbuyaasha askarta ciidanka galeen bay gubeen way askar badan bay dhaawaceen saa u laayeen dadkaas dad muxuu ahaa si kale ahayd oo Soomaaliya fahmin baad iyada oo falalkaasi xilkas darridu ay dhaceen maalintii shalay ee bisha Oktoobar ahayd 8 waxaa maanta wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed uu soo saaray warbixin ballaaran oo si cad ugu bayaaminayo in dadkaasi falalka aan loo dul qaadan karin geystay intooda badan ay waddanka ku joogaan sharci darro wuxuuna intaasi raaciyay wasiirka arrimaha guduhu in laga qaadayo tallaabooyin cad oo sharciga waafaqsan wadaba isku geeyo marka la eego sida bareerka ah ee dadkaasi uga hortageen sharciga waxaa la odhan karaa waa jawaabtii ugu habboonayd waxa uu ka bixiyey wasiirka arrimaha guduhu isaga oo weliba arrimahaasi u kala qaaday laba qaybood muwaadiniinta sharciga leh ee reer Jabuuti oo sheegay in aan marnaba laga tagayn oo ay yihiin kuwa ay dawladdu markasta u adeegayso iyo inta aan iyagu sharci lahayn oo sida wararku ay sheegayaan horseed ka ahaa tallaabooyinkan kharbushka wasad ku dhawayn sifaadumo isla marhaantan ay sheegeen qoysaskii iyagu deganaa xaafadaasi nasiib oo weerar baan lagu soo qaaday isla marhaantan laga burburiyay dugsiga waxbarasho ee wadku waxay ku dhiganayeen iyo sidoo kale xaafadaha qaar oo iyagu dhagax lagu shiiday isla marhaantan albaabadii guriyuhu ay lahaayeen runtii laga burburiyay taasi oo ah iyadu gardaro amba daandaansi lagu soo doontay qoysaskaasi la dejiyay xaafadani cusub ee nasiib iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay ciidamada booliska waxa hadaba aanu waraysi la yeelnay wasiirka arrimaha gudaha oo arintaas aan wax ka weydiinay waxana weydiisatan shacbigii Djibouti baan la hadlayaa maanta haddii joogaan magaalo haddii joogaan miyi kolley waad maqashay waxaa ka dhacay shalay buldoqo meel la yidhaahdo waxaa dhacay dad oo bandiyaal ah iskoolkii buldoqo oo ciyaalka loo soo dhisay oo dadkii laga raray ansandiga dhacday balbala iyo meelaha kale oo masaakiin ah guryooninka la siiyey oo nasiib la yidhaahdo fondation iyo OG baa la weeraray iskoolka way ka jabiyeen wax la qaadan karo maaha dawladdiiba inay jirto way ilooban kuwan waayo dhulkoonu cid kastaan ku qaabilnay waan u furnay dadku waxay shalay dhacay bulduqo wax la qaadan karo maaha dadkan badinkooga waraaqa ma haystaan dad dibadaha ka yimiday weeyaan securitygi dadkeenu dalkeenu halis bay galiyeen ciyaal iyo naago iyo oo nasiib galo odayaal iyo dirqi booliska ka gaadhay inay gubaan bay doonayeen intay yimaadeen fondation iyo OG-ga iskoolka digintay ka dhigeen xaasidnimo cad kalaas bay gubeen liberadu ubadku ku baranayaan bay gubeen intay dibadda u saareen dhul bay dagayn balaa ruqsad dhulka waxaan ku talagalay inaan la dhiso guryooyin fondationga sidaan imika loo sameeyey 2,000 guri programkay ku jirtaa oo dhawaan baa la bilaabayaa maanta waxaan u hadlayaa dad bala sharci ah teeraan ku dhaadhacay Djibouti
bulduqo ha taado meel kale ha taado inay ka kacaan haddii kale quwad baan ku kacinaynaa wax la qaadan karo maaha annagu bani aadamku waan dhowrnaa laakiin xad baa jira xadkaa shalay waa la dhaafay ani waan tagay meesha wataniyinkii Djibouti oo bulduqo galayso xal waan ni helaynaa guryooyin baan ni dhisaynaa presidentka yaa loo dhisa guryooyinka fondationka waa iniga waa Djiboutiyankii baa loo dhisayaa 2,000 guri imika la bilaabayaa dadkan bulduqo galo oo Djiboutiyan ah inay biroogii fondationka oo xafadii nasiib inay tagaan maca warqadooda maca waraaqihii ubadkooga inay is sajilaan dadkii kale shaqadeenu maaha ka kac dhulka wataniinta lis baan ka samaynaynaa dadka annaga noo yaalayn xukuumad baan nahayo presidentka shakhsi ahaan buu is engageyey inay Djiboutiyaanka pobreka inuu siiyo guryo dowladda Djibouti dadka say u furtay albaabta réfugié baan haynaa immigré clandestin baan haynaa laakiin waxaa la yidhaahdaa matal carabi baa jiraayo yaa qariib kun adiib waa dhaafteen de citoyen Djiboutien baad menacéteen shalay dadka nasiib galayo oo guryooyinka ka gubtay oo xaalad yani xun ku jira intaad u timaadeen guryooyinka ka baxa ad caydeen odayaal naago ubadkii yaryara baa ooyayay shalay iniga ka ooyayay ma aqbalayno de no ma aqbalayno waan ku dhaqaaqayaa waan nii sheegnay allahumma ballaqt وكاس فاطمه يساس مقلسي وزير كريمها gudaha ayaa isagu hadalba soo xiray balse waxaan ku darayaa oo aan dadweynaha ogeysiinaya in loogu baaqayo muwaadiniinta iyagu degan xaafada amba goobta bulduqo in ay iska soo sajilaan hay'adda sanduuqa lahaanshaha guri si loola socdo noloshooda isla mar ahaantana ay uga qayb qaataan mashaariicda bulsho waxaana laga codsanayaa muwaadiniinta degan xaafada bulduqo marka ay yimaadaan ay sajilayaan in ay kaararkooga wadaniga ay soo qaataan waraaqaha ubudkooga kuwa dumarkooga intaba si loo sajilo loona socdo noloshooda isla mar ahaantana ay uga qayb qaataan mashaariicda bulsho ee ay dawladdu wado. Ad mahadsan tahay